waxaan rabaa meeshaan inaan uga jeediyo baaq muxuu ahayday dagaalada ka soo cusboonaaday meelo ka mida gobolada muxuu ahaa galgaduud oo ka mida galmudug maamulka dowlad goboleedka galmudug iyo ereyadan cadale iyo tuulooyinka u dhow oo iyagana maalmahan uu ka socdo dagaalo meelahaas hirshabelle deegaankan ay maaragtay hoos tago meelahaas oo ahaa meelo nabdoon waxaa aada iyo aad runtii wax laga tiraanyooda ah wax laga xumaada wax laga naxa ah wax arrin laga walwala ah dagaalada ka soo cusboonaada meeshaas ay isku dilahayaan dad walaal ah oo maaragtay isku muxuu ahaa deegaan iyo daaq iyo dhalasho intaba ay ka dhaxayso inay dhiigooda ku daata meeshaas gaar ahaan meelaha sida gaarka xeraale meesha la yiraahdo waxaan maqlaynaa inuu ka dhacay dagaal runtii muddo 2 maalmood ka socdo dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo hub aad iyo aad u baaxad weyn halkaasna dad badani ay dhimasho iyo dhaawac iyo barakac intaba uu ka soo gaaray sidaas si la midana in dhinacan kale hadda aan ka hadlayo ereyadan degmada cadale sidoo kale in arrimahaasina iyaguna ay ka dhaceen waxaan qabaa arrintaasi waa nasiib darro aaday nasiib darro u tahay aad iyo aaday waxay tahay wax ka fog deganaanshaha walaalnimada muslimnimada intaba maaragtay dagaaladaasi wax ka fog weeye waxaan qabaa looma baahnayn wax loo qabay arrimahaas in dagaal meeshaa ka dhaco meelo nabdoon bay ahaayeen waxaan ugu baaqayaa dadka waxgaradka culummada iyo odayaasha dhaqanka iyo dadka kaloo bulshada kaloo Soomaaliyeed ee deegaamadaas xaraale iyo dhinacan cadala intaba ku sugan in arinta dagaalkaas la joojiyo ayadoo lagu yaani shuruud la'aan la joojiyo ayadoo xilligan lagu jiro waliba xilli abaar ah oo dadku ay biyo la'aan iyo daaq la'aan iyo muxuu ahay xilli kulul oo ugu kulay ay ahayd ayay ku soo beegmeen waxaan leenahay arrintaas ayadaahi dadka ehelka meesha ku nool in arrinta la joojiyo sidoo kale waxaan ugu baaqayaa madaxda meelahaas madaxda maaragtay maamulada dowlad goboleedyada madaxdooda iyo gobolada iyo degmooyinka ay wax ka dhacayaan intaba madaxdooda iyo dowladda dhexe ee federaalka intaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kale oo ku shaqada leh arrimaha amniga in arrintaas la joojiyo dhibaato waa dhacday laakiin in laga wada qayb galo dowlad iyo shacbiba in laga qayb galo arrintaas inay joogsato intaas waa ku baaqi lahaa waana maaragtay waxaasina absolutely wax la qaadan karo ma ahan wax loo fadhiyana ma ahan marka haddii dadkii walaalka ahaa oo ehelka ahaa dhibaatadii dhacmartay haddii ayaga miyirka ka tegay dadka kale oo la u dhow dee ayagana waa inaan miyirka ka tegine arrintaas waa in laga hortagaan leh intaas intii dhimatana waa u tacsiyeynaya inta dhaawacantana allaha caafiyo halkaana in lagu joojiyo oo maaragtay dagaal wax faa'iido darro aan ahayn wax ka qof ka soo sheego faa'iido uu leeyahay weli ma hayno anaga taariikhda kuma hayno arrintaas wax diinta islaamka ku banaana ma ahan wax deegaanka iyo deganaanta iyo dowladnimada iyo wada dhalashada iyo ehelnimada midna ku fiican ma
alla joojiyaan leenahay in shuruud la-aan la joojiyo shuruud la-aan in la joojiyaan ugu baaqaynaa hay-adaha ku shaqadeelina oo mas-uuliyaddaas si toosa u taabanaysana ha ka qayb galeen baan leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu